هذا كور باوحن تجي سود أفريقيا Soomaalidu dib ay ka tagtay laakiin jaaliyada xoog badan ee muslimiinta matasha waa hindida waay marka waxa dhacday Soomaaliduna madmadow oo Afrikaan ah baa hindidii ka dul dhacday nimankii intaas oo qarni masaajid hayay masaajid qurqurux badan ka dhisay ayay ka dul dhaceen ayagu marka waxay sameeyaan hindidu muadinka ayay ka dhigaan dadka dalka u dhashay waxay qabaan الأذان لبلال أذان كحبشيدا إسكاله حبشيدا أذان دت كمن بدوبة إسكاله يا قبائل وبلال بأذان بيشري صوما حديث نوع سنوات بيشري مركا نينكا كأذان مساجد كعربنا معها هندنا معها قصب وإنه نقضه دت كأفريقيان كيدت دل كده أيها كأذامي markuu aadaamo safka hore kuma tukan karo waa inuu gadaal u baxo ruux aan ahayn cadaanna safka hore inuu ku tukadaay mas'alo fudud ma yaqaanaan dadkii dalalka deganaayay Afrikaanka ahna way garowsadeenoo ayaga laftooda way qaateen oo safka hore isku balgoyn maayaan Soomaalidii markay meesha tagtay maxay samaysay هندي وصوت ضاهي صوبها صفكي كوباد يكيل لبعض وبسيب وحسنه يا هندي دي وحي عبارة يعني صفوف تهرب واحد وردت كان من مدو بلايد أفد إلى صوت علي ما هي هايم بلي ولا يسكو كذين إلى أي وهايستين بدت كان إلى هايم ضد كذلك سو إسلام يصير أفريقيان كالديب كسو إسلام مركميد صوماليا ayaa wuxuu ku yiri mid hindiya wuxuu ku yiri goormaad soo islaamtay buu ku yiri hindigii baa Soomaaliya ku dhahay goormaad soo islaamtay aabaha oo gaalan soo islaamay buu marka waxaan ka waday oo ujeedadeedu ahay يعني دتكاس مسلمين هنديدا يا صومالي سي اسكو كديدين واديابي وبابا waxaan tagnay Rotterdam magaalo la yiraahdo oo kamida South Africa marka masaajid weyn oo walaalaha hindida gacanta ku hayaan ba ku yaal marka dumarkoodu hindida masaajidna ma yimaadaan ciidna uma soo baxaan guryahay joogan dumarkii Soomaaliguna masaajidkana way imaanayaan ciidana ayaga dadka u soo horeeyaba arintii iyada ahayd baa dhibtay masaajidkan dumarku soo galahayaan oo muxuu ahay muxaadaraadka iyo markay qaadanayaan iyo markay tukanayaan iyo dumarkii hindida ahba marka waxay arkeen dumarkan masaajidda galaya ciidaha imaanahayo markaas raggoodii waxay ku yiraahdeen wareede diintu ma diidin inay dumarku masaajidda ku tukadaan oo ciidaha baxaan maxaad anaga ugu haystaan dumarka Soomaalida xijaabnaaba oo kuwaas maalintii damba hindidii baa waxay u yeedheen Soomaalidii waxay ku yiraahdeen walaalayaalow waan ognahay inay masaajidda dumarku ku tukan karaan ciidana ay imaan karaan laakiin dumarkanagii ma xijaabna kuunu xijaaban yihiin dumarkan dhagiin xijaabnayn baa waxay sababaysaa inay soo baxaan oo masaajidana yimaadaan ciidana yimaadaan ee waxaad sameeysan hana ibtileynine hana aafeynine dumarka reeba oo masaajidana ka celiya ciidana ka celiya ay ku yiraahdaan mataqaan warinta dumarka u diideysaan khayrka dumarka xijaaba oo dumarka xijaabka ha ka bartaan marka waxaan ka wadaa markaynu bulshooyinka kale isdhex galno waa isku rafaadnaa qayladeena musqulihii meelii kabaha la dhigay nidaam bay leeyihiin dadkan nidaam bay leeyihiin daqiiqa nidaamka daqiiqa ana Soomaaliya waxa soo gali aan nidaam aqoonin hadhow qorta la isla geli